lagula xisaabtamo. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu ahaa Cabdisaciid Muuse. markan haddaan eegno dalka Mareykanka dhawaan waxaa la meelmarin doonaa sharci ogolaanaya in masaajida magaalada Minneapolis kor loo qaadi karo aadaanka iyadoo sharcigaas lagu dhawaaqayo 14 bishan. waxaa xusud mudan in dhawaan warbaahinta qarankuna ay la wadaagtay gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cusmaan oo isagu faahfaahin ka bixinaya arrintaas isla markaana meel mariyay sharci ogolaanaya in masaajida magaalada Minneapolis oo dhan adinka salaada kor loo qaadi doono. sharcigana waxa uu dhaqan geli doonaa 14 bishan. gudoomiye Jamaal ayaa hadalka waxa uu ka sheegay kulan uu kula qaatay masaajidka Abubakar qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. haddaba arrintan maxay ka dhigan tahay in aadaanka kor loo qaado maxaase guud ahaan Mareykanku ka bedeli kartaa arrintan. waxaana la falanqeynaya oo hadda qadka Skype si toos ugu jira dalka Mareykanka ugaas Maxamed ugaas Abshir Xaashi oo isagu kamid ah dhaqamada Soomaaliyeed aadna runtii wala socda xaaladaha kala duwan ee Soomaalida ee dal iyo dibadba. ugaas Maxamed oo soo dhawaanaya mar kale soo dhawow bal arrintan hadda soo korortay in kor loo qaado aadaanka maxaa Mareykanka iyo guud ahaan nala wadaagi kartaa faahfaahintii u dambeysay. waxay adiga iyo ayuuga iyo barnaamijka inta daardiginaysa taafraac iyo TV qaranka dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka ee nabadgelyada in naxariista xambaarsan salaam dabadeed runtii alxamdulilah waxdahu الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعزه وصلي وسلم على سيد الأبرار نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وحقي كدغنتها سيده قولك الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. حقيقة ماتي runtii arrintaa horta waxay soo socotay tan iyo 2014 waxaa adiga ku qiyaasi karaa muddo adiga 8 sano ama 10 sano ah runtii walaalkeen Jamaal horta waa dadaalay fursadana asaa helay wuxuuna la mid yahay runtii asxaab rasuulullah sallallahu wasallam alayhi markii ay sulhul Hudaybiya ay dhacday bacdigeed waxaa soo islaamay Khalid iyo Amr bin al-As marka خالد بن الوليد إن شاء الله مركا فدي وقت جاس مركا سوء إسلام فتح الأعلم كي مركا رجاس مركا سوء إسلام يبكي صابوه كل يمر كم تاع مركا لا الحمد لله جمال وحكومة بوليس واحد إنتان جوشنا الصومالي والمسلمين كل هول يابرس المدربين عليه أصلا إلهي قاعد يسوق قصوي إلهي قصوي زي وأنا كنا سيء واحد وين أنا كنتاعي وأنا تاريخ مركب جوهر السي جيل جود أهم باليونايتد ستيت أديك قرر الواقع. وايه وقاس محمد مركلا فيري أنتم كلوات 10 سنة سو سعودة سيدا عاشقتي Soomaaliduna dadaal badan ay u galeen dadka muslimiinta intuba ma arintan waxay ku kooban tahay Minnesota ama Minneapolis oo kaliya mise guud ahaan Mareykanka oo idil hadda sida muuqata state kan ku koobantaa Minneapolis iyo ma waa state kan oo dhanba laakiin waxaan rajaynaynaa in Mareykan oo dhan ay gaarto oo runtii Soomaalida hadda ku soo qaxday Minneapolis oo degan Minnesota waxa lagu sheegaa inay yihiinba shucuuradii islaamka hadda oo weyn oo waliba culimada ducada kamid ah adiga hadda nimuga hadda magaciisa waa salaxsanahay yaa hadda ka hor xataa wuxuu ku khudbeeyay in Soomaalida qaxay inta ku yimaadeen islaamnimada Ilaahay ugu musfeenayo eeba sabab Ilaahay oo halkan ku keenay ay tahay markii xaqiiqatan oo inta si oo xaqiiqa oo gudaha lagu dardigo oo runtana laga sheego Soomaalida waa jaaliyada kaliya ee dumarkooda ayagoo xijaaban meel walba taagan baararka taagan darbiyada taagan ganacsiga taagan shaqada taagan kaniisada xataa kasii dhexbaxa kasoo dhexbaxaya mudda adiga marka hore dhan waa lala yaabanaa kadib hadda waxayba noqotayba hataa islaamkii hadda ninkaan wawaadku ka tisaya sigisa dadku ugu horeeya lagu soo dejiyey waxay ahayn carab muslimiina ahayn oo iskugu jiray yemeniyiin iyo falastiiniyiin iyo لبنانيس
hal qofka maanta kama joogo waxaad kaa soo horbaxaa dhan wada adigoo waa caddaan haddii oo magaciisa sii weysa jor markii la dhaafana wuxuu noqonayaa magaca muslim gaba u laabanaya dumarka islaamka ee halkan jooga dumarka keliya ee xijaab ku socda waa Soomaali hadii ku soo dadayeen oo tartiib loo soo laabanaya muslimiinta kale إما إن النقاب وطار معه جينز كله تاجين مركا أرنتاسي وأيوه وقول بلوه لمسكين إنه وحرجين الملائكة وطن إنكاتو هو حان الله سبحانه وتعالى أن يكرر جيلنا قولكي واقعتي وقاس محمد هذا ما تنتهي waxa uu gudoomiye Jamaal sameeyana waa wax 10 sano soo jiitamaayay hadana guul laga gaaray marka aad fiirisid culeysyada iska jira Mareykanka oo dadka duwan ay ku nool yihiin qof kasta aan lagu xad gudbi karo leeyahay qof kasta diintu soo waxa haysta sidoo u dhaqmi kara tan guud islaamka iyo culimada Soomaaliyeed iyo culimada islaamka guud ahaan marka arintan u fiirisid maxaa loo arki karaa in aadaanka kor loo qaado gobol dhan ama state dhan oo weyn oo Mareykanka ka tirsan dad kala duwan oo malaayiin kor dhaafay ay ku nool yihiin الله يعزك وحلو قال كرا وقف والبقى مؤمن أو ما تيقين سري قولك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصادق المصدوق هذا كيس نبأ جزء أهاي إسلام مركزنا ومعصوم أها قولك هذا رسول صلى الله عليه وسلم عليه يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل دليل أو بذل دليل مركا وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه حديث كنتي وحوين كفر ما تكون أفر بقول شيء واحد يقين سني إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه لولا إيمانتي كنتي إسلام تسوق فافا أجدوا أن فافنا سؤال العقوب بحس وحد التاجر يسجل الباب وقراء عنه هذه حتى ذكر قاركي يكون مريج لهاي ما أنت واحد إسلام وحان مسلم نجري لهم هذا مركي لقي ماله رنتي حديث كان حديث رنتي وكفك الإسبال البالغ ورنتي ما نكره من معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه مركي تا أكلم مامو رنتي ماشان أن هذا أن كنا نهاي ويوم بيابرس حقيقة waxaa ku xidhiidheystay anaga waxaan naqaan meesha hadda markaa Soomaaliya aan muqaabalo ku taagayaan iyo kuwa faaloyaal iyo wax dar shaqadoodii kuwooda waaweynka aad leedahay ama ayaga ka soo taxqaateen ama ka soo kutub akhriseen ama yani macallimiintooda waaweyneed ah halkan degan marka aadaankani kor loo dhawaaqaayo wax badan oo bulshada ee waliba ay markaas ama jinsiyadooda ha lahaato ama islaan ha ahaato ama islaan noqonayo wax weyn u tari doonaa oo shayaadiintan ku raran iyo balaayadan iyo falowyaasha iyo sixroolada ee ku rareen yaa uga degi doona waana rajaynaynaa taas inay dhacdo qodobka labaad islaamka maanta wax weyn ugu noqonaya weliba ragga ducaada sheeganaya oo anfici doona waxay tahay in haddii la dadaalo wax badan la qaban karo runtiina bulshada maanta aan la noolnahay ee Mareykanka cadaankooda madowgooda waxaan ku oran karaa 80% waa muslim kaliya waxaa ka maqan tawxiidka oo loo qabtay bas أخلاق الإسلام نمرة هذا محرز أهله هذا يكون أهله هذا دعم أهله هذه تقل كإسلام كأسيد سياحيات إلا توحيد كلية كم قبل مركا هذه توحيد وحوين مركا وحوين النوم فلا كان مانتي أو كقرر أو وحال الذي بيقول وليه هذا مركا وحال كتير الموسيقى أريها إن كان لا بسمع عدوين قالوا كحرت طريقة الله بس هو يكون جيل إسلام شرعي وآلان ولا مؤقرين ما أنتي وحاول لو شرعي إن آلانك كحافظ حافظ لك مرة آلان مقرور كنت وحا يودم بين جلتي مركا صومالي إبانا مركا إلا حمدك سؤال ما أنتي هديني إلهو مساجدة روان وابضان ترهدو وابديه وحانا كانت الكروات كجيست إلى إفاتيت مساجدة هذا حتى الكنيسة قاركو دو بدلايو ضد مسلمين أو مسلحين أو هنتي صومالي أبانا marka insha Allah wax weyn nooga dhigantahay walaalkay Jamaal iyo rag arintaas ku howlana waliba waa ugu hambalyeena waxaana aaminsanahay inay sadaqo jaariye ee u noqon doonto ilaa qiyaama saacana u socon doonto marka Jamaal iyo wixii lamid ah waxaan ku fogaanayaa
waa gartay ugaas maxamed hadda arrintan waa arrin aada loo bogaadiyo guud ahaan dadka muslimiintana ay wax badan ugu fadhiso maadaama aadaan kor loo qaadayo stateka Minneapolis marka aad fiirisid islaam nacaybka iyo islamophobiyada inta badan waxyaabaha aadka loo tiirka looga dhigto waxa qayb ka ah aadaanka kor loo qaado iyo dadkii oo banaanka keena diintooda islaamka ahaa iyagu dhaqankoodii wanaagsanaa banaanka la yimaada islaamnimada ahaa marka aad fiirisid ma laga yaabaa arrintan hadda la ogolaaday in aadaan kor loo qaado dadka aan islaamka ahayn inay u arkaan dhibaato kale lagu carqaladeynayo waxyaabaha been abuurka ah ee ka soo horjeeda diinta islaamka ay aaminsan yihiin dabcan horta runtii dad noocaas oo weliba yani ka horan waa jiraan oo jinsiyad walba leh laakiin ilaah xamdigiis waxaa maanta in United Nations bay ansixisay inay bashaqeeyo qodob dhan oo islamophobia meesha ka saaraya wax kastoo ay tahayna waxa horta anaga statekan aan ku noolnahay runtii xisbigan hadda wadanka haya ayaa ku badan oo xisbigan runtii markii oo run laga sheego waxyaabaha uu ku fiicay waxay tahay wuxuu dhiirigeliyaa dadka xornimadiisa salaada xataa meesha aad ku tuganta wax waa xisbiga runtii sida adiga waxyaabaha uga mahadcelinayna dimuqraadiga ay ka mid tahay taas markii laga yimaado dadka Mareykanka runtii inta oo adiga islamophobiyada iyo waxaan cunsuriyada waa kusii yaraanayaan waana runtii dad ilbax oo حقيقة بين آدمنimada ku fiican islaamnimada xataa yani maamulka ay noqoto maamul ahaan iyo ay noqoto dawlado badan oo islaam sheegana islaamka maanta ay uga roogin marka ilaah hoostiisa waa hadlo marka waxba ma tari doona waa tiro yar waana soo hanuuni doonaa markay aadaanka dhagood uu ku dhacaan waxaan rajaynaa inuu ilaahay hanuuniyo gabadhiyan kusii dhawaanaynaa ugaas maxamed hadda 24 bishan uu hirgeli doonaa sharcigan la meel mariyay ee ogolaanaya in aadaanka kor loo qaado Minneapolis marka aad fiirisid culimo kale oo islaam ah oo aad u tiro badan oo Soomaali iyo kuwa kale isugu jira ayaa Mareykanka ku nool talaabooyinka hadda stateka Minneapolis uu qaaday iyaguna Soomaaliya inay ku dhiiradaan oo ay qaadaan oo ay u arkaan talaabo wanaagsan oo diinta islaamka loogu hiranayo kono loogu qaadayo islaamnimada طبعا وأنا رجالنا أو كل وبيلو أو كنتي بيلو وناسن أو شغلات أو وحول كوفة إذا أو وصل فيهم دولار وصل بيد دولار وأنا أمسنا هاي هذا أوفر دولار ترتم فرن أو دينو وبوح قبل كرا وهذا وحام مقطع إن وحلا قبل كرا أو وحلا صحي كرا أو وحام معقول أهانجرين هو أهانجرين هذا معقول لقى كرا وآلان أو شغل الأوغلاء ما أنت الأوغلاء مركا waxaan rajaynayaa arrintan inay furo u noqoto oo waana marka hadda inaa fataxa mubin aan ku soo furfuranayo dadka bacdo naas waxay aaminsan yihiin inay maka keliya tahay laakiin ayadahan waxay soo degeen sulxul xudaybiya markuu uu dhacayo ilaahay wuxuu sii qur-aanka xataa min mucjizaadkiisiina ka mid tahay in ay imaan doonto fatxi weyn oo fatxi uu furfurmi doono oo u socon doonto iyo ilaahay sii ishaarayo siina muujinayo siina caddeynayo marka والنوع waxay ka mid tahay futuuxaadkaas islaamiga ay soo jiray haddana waxa waa sii socon doona ilaa qiyaam saaca runtiina waxa xadiida ah in ay diinta islaamka si uu fidirsa ugu socon doonto qofkii asagoon wax ku darsadana asay anfacaysaa qofkii ka fariisan oo wax ku darsan waayana aswa wax u taaban laakiin islaamnimadu ilaa qiyaam saaca inta qoraxda ay galbeed ka soo bixayso waa jiraysaa kii findoobaya iyo kii oo markaas wax ku qabsanayo dhalinyaro badan oo Soomaaliya ka tagtay ama waalidkood Soomaaliya ay kala carareen colaaladii dalka ka jiray ayaa Mareykanka ku koray qaarkood waa ku dhasheen inta badan dhibaatooyin badan lagu qabaa marka laga hadlayo waalidiin badan oo cabanayo oo dhalinyarada ku aadanaya in gaangistara ay noqdeen oo ay qaarkood runtii ku milmeen waxyaabaha xunxun meelaha ka jira arrintan marka la fiiriyo la xiriirta in aadaanka hadda kor loo qaadayo awal marka la fiiriyo sidee dhalinyarada iyo dadka kaleba salaada loogu yeeri jiray una imaan jireen masaajiddu وأنا حقيقة ورنتي وبونت ماشي كبيرة أنت بوحياها ضدك بسوق أوجران أيام أمين أي بكركوب تاعي صوت أنت تكتب واسكير هوس على الكتابنا قفر بالساعات دي ساس وموبيل كيسوس كل سوق
آلام بمركة مساجد جديد الجشيدة بقوه رأي واحد ثاني من هذا وحاول أذكر حتى مرخاتي كذا الأحياء لين حتى أديه ونراه عن تلوين أنت أو أشقى تجي ما دون كشقيناي وأقوى حنوصلي وصور أنتوا يمد دور بريو أديه مساجد تجي حنون بدأ وهي إنه كذا عجمالي وشيء وحيابه هو الرأي الصومالي وصق حان أنا يقولك استيقظ اللي قد مياه بسوء أنا هو الرأي أيوة أنت كلير هذه فهم مركا أنت أصبحت وين الوقوي لكن ما أنت إباتراس إنه حتى الدنيا إن على أنت كشفت سنة وحوالي جزاكم الله خير الجزاء وأنا وحوي كوغاز محمد أضو إيسو كوبية فرينتا أرنتا نحن تمحيتها ما دام كمتها dadka haldoorka u ah Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool aad loo dhageysto lala socdo runtii wax badan kala socdo xaaladda Soomaalida ee Mareykanka وما حصلت العزك مانتين وروتين وأدي خير كل شيء يدير الجناية صدق علمات أنا أقول تري له أو قراء علم قراء بخصوص أنت كوا بحوالي هذا وحال ورثتي سنتك روت وأنا أقول علينا جاي أنت تكون فرصة أبارة كل مكان إن أنت أصل السير بالله أرتبط وكبر لكن أنا مرته تعالى دي سنة ربي وأنا هرب أصلا أنت أصلا بتجيء وليه كله وفضل ربنا وشعبان الوجرة شعبان سيد كسبناته وكنتي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وليه أصلا بالزيت نورينا هيو هو دي يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وجواري ذلك الشهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا سائل يرفع عملي مركا بشان بلاه لغفا إذا أضوه خير أما صومان أضوه صوم بعضكم صومات صدقات بحنا خير كشقينا ولا كشقينا وبشي أعماشي كله رفعي وارتوا إنا نقول أهان هرتا أهنتا بشا كوه ورفعي ديسون قدر كلابات أن مركا أنسيب قونية أن دادك قاركتيس أن ويبا أن لغي حتى ماشا أن كنا نقصية أن أسو جليل لها وحيتا قود أهان ويبا مية حتى وقار أهان رجل السياسيين دينا نصف شعبان وحكسنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه حديث بهذا مصورين يو oo dabarani muddo kabiirkiisa muddo wasiidkiisa uu ku keenayo oo rasuulku uu ku sheegayo in ilaahay dadka acmaashiisa uu daalaco nisfu shacbaan markay 15 ee tahay shacbaan fayaghfiru li jamii'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin mushrik waa garanayba mushah waa kuma وقفك مريك عقد لها القضاء دقت كيف كراي آسف اللي كنت خاصة الرجال السياسيين عقد السوق وحنك عصرها إن عقد إسكساران إن كفى إيدستان فرصة إيمان تهسا شعبان إلى شعبان تدبك سوق جالس بقول هيه جود أهم مركا صومالي مركز تجوبتو من بدك هذا أدبلها كنا خاصة weliba dadka miyaad isku nool wixii aan ismaqleyno iyo wixii aan iska warhayno waxa uu kula dardaarmi lahaa dhammaanteedana aan is oran lahayn isna fari lahayn qolka alle subxaanahu wa tacaala uu ku lahaa wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin doorsanayaasha alle unbaa loo diyaariyay aanu doorsanaano aynu dadaalno bilihii fadliga badnaan ku dhex jirnaa بليه لقنيميسن الجلال وحجرة أن قنيميسنه وفرصة دهنية ويصير نوصل مريض أنت أنا الرهوبين مركب بالله عليكم مركز طول أن جملة أن دلالك ياس أن سيوانه مركز الوحى أن صلاة شوف اللوتو كذا أن سنة يقفر بقى ومسلم يقوى بالتمويل المسلمين حتى كل الميابرس إن صلاة شوف كذا بوشان يفتح إلهي أمسية إن آلام قرر وقول تاريخية أو هرمية برسكري أكيد. وياه أدي بعض ما صنت هاي وقاس محمد وقاس أبشر حاشي أو سو كمدا
odayaasha dhaqanka ah waxgalka ah iyagu ku sugan dalka Mareykanka waxaan caaw si gaar noola falanqeynayay aadaanka sharci ogolaanaya in kor loo qaado oo la meel mariyay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka 24 bishan ayuu hirgeli doonaa ama dhaqan geli doonaa sharcigan barnaamijka daraaciya la socotaan markan haddaan eego magaalada Muqdisho waxaa dhawaan lagu qabtay dood looga hadlayay dhibaatada maanduuriyaha iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada doodan waxaa soo qaabisay madasha Somali Development Forum iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inta badan doodda waxyaabaha looga hadlayo